Sulaadiin, cuqaal, odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda beesha galbeedka gobolka Saaxil ayaa gaashaanka u daruuray dhismaha wadada Jarato oo dhawaan una dhagax dhigeen maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbera waxaanay sheegeen inaan lagala tashanin dhismaha wadadaasi oo ka mid ah deegaankooda iyagoo sheegay in wadadani ay ku taalo meel xasaasi ah oo ku yaala jeelka Mandheera isla markaasina wixii goobtaasi ka dhaca iyaga deegaan ahaan wax laga weydiiyo waxaanay sidoo kale sheegeen inaanay ka soo horjeedin horumarka iyo dhismaha wadadaasi balse aan iyaga lagala tashanin iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waa hadaladoodii ka mid ahaa meesha halkan aanu joognaa waxa weeye dawgii Jarato ayaanu imika saacadan taaganahay halkaanu TV-ga ka duubayna waa dawgii Jarato waxa halkaas isugu kaaya keenay intaasoo ummada oo deegaanka oo culimo iyo cuqaal iyo sulaadi iyo dhalinyaro iyo waayeel iyo haweenba leh waxa halkaas isugu kaaya keenay laleeyahay Cabdishakuur waxaan furayaa dawgii Jarato ee xidhnaa ee nabadgelyada iyo amniga loo xidhay ayaan furayaa anigoon deegaanka waxba ka weydiin dadkan waa dadkii Jarato yiilay deegaanka ku ahaa weeye anoo waxba ka weydiin Cabdishakuur ayuu yidhi waan furayaa cidna wax laga weydiin maayo marka sidaa tahay waxaanu leenahay warwaaye wax la iska weydiiyaa oo la iska waraystaa oo dadka lala xidhiidhaa oo deegaanka lala tashadaa marka sidaa tahay hadduu sidaa Cabdishakuur u dhaqmaayo uu leeyahay maanta deegaanka waxba ka weydiin ma reer Jarato gardarra weey xildhibaanadeedii baa waxba laga weydiin odayaasheedii baa waxba laga weydiin cuqaashii baa waxba laga weydiin dayartaa waxba laga weydiin arrintaasi waa arrin aanu baaq dheer ka dhignay waa arrin aanu leenahay Cabdishakuur horena uu noogu qaldamay imikana uu noogu qaldamayaa sidaa daraaddeed waxaanu leenahay arrintaasi arrin aanu diyaar u nahay maaha waanu xidhnay sidiina way u xidhnayd waxaa halkan ku taalla degmadii Mandheera oo ku yaalla jeelkii weynaa ee Somaliland waxaan laga wada tashan dadka deegaanka baa wax laga weydiiyaa hadday wax ka dhacaan waxa ka dhaca waxa laga weydiiyaa dadka deegaanka haddii aan laga wada tashanin waxay noqonaysaa inay arrin foodaa tahay sidaa daraaddeed buurta waxaa jirta waddo hore oo dalow meesha la yidhaahdo ka baxda oo hore ay loo joojiyey oo uu joojiyey Cabdishakuur ina ciidin maayarka magaalada Berbera waddada ka baxda dalow isagaa joojiyey si been abuurana maalinta dhaweyd ee uu dhagax dhigayay wuxuu yidhi waanu dhammaynay tii dalow arrintaasina been abuur bay noqotay sidaa daraaddeed waxaanu leenahay arrintaa inta la isku soo gaarayo ee laga wada tashanayo ee xukuumaddu wax ka ogaanayso waxaanu leenahay wax la furi karaa ma jirto ma diidanin nidaam dawladeed waxaase ka horraysa dalka markii Soomaaliland la wada wareejinayaba Jarato lama wareegin horta markeeda horeba waa Soomaaliyeed baan ku ahay dawladda inta tibi Jarato nagala wareegtay ma jirto cid uma la diidin furaya waa xidhnay meeshanu dhowr iyo 3 sanadood bay xidhnayd inta ay xidhnayd cid ma imanin cid waxba isma weydiinin maanta niman Muuse Cabdillah baa yimi ma fahanday nimadii Muuse Cabdillah waxay yidhaahdeen dawladda Jarato waa furaynaa Cabdishakuurna waa u yimi isna waa dhagaxyo waa furayaa buu yidhi hawshaas waa hawl aan dhacaynin waa waxaan soconaynin oo waxaan yeelaynin oo wax weey waa laga shaqeynayaa oo hataa waxa tagay meesha barasaabkii iyo maayirkii baa tagay waxa weeyaan waxaanu leenahay guri haddii deeg la tagayo oo hawl laga qabsanayo dee cidda joogtaba wax laga weydiiyaa waxaanu leenahay arrinkaasi arrin qaldan weeyaan halka waxa jooga cuqaashii haldoorka ahayd iyo sulaadiintii iyo odayaashii deegaankan ayaa jooga iyo ugaaskii waxaanu leenahay halkan iyadoo haddii dhul la wada leeyahay amba dee adduun la wada leeyahay
waxa weeyaan dee waa la isugu yimaadaa cid iskama fushato waxaanu leenahay halkan cidina wax ka fushan mayso iyadoo aan beeshan waxba laga weydiin geela waa wada jira waana kala jira dadkan halkan maraya ee iskugu yimid madashan waa dadkii deegaanka Ilaahay u dhaliyay cidaan iyaga hayna awoodu ma laha haddii wax laga qabanayo wax qabad ma diidana laakiin waxay diidan yihiin waxyaabaha foosha xun ee lagu dhaqmaayo amba gobol ha ka soo fulaan ama cid kasta ha ka soo fulaan waxa weeyaan wixii umusha u danaya ubadkana u dana dadka nabadgelya u dana haddii nabad la waayana cid wada noolaanaysa ma jirto waxa leena qarankani wuxuu ku dhismay oo ku taabagalay waa wada tashi waxa leenahay cid kasto arinta ku gacan jirta oo ku lug leh faraha kala baxbaan leenahay haddii la doonayo wanaag waxaanan anagu ka talin oo deegaanku aanu ka talin oo aanu mudida daabkeeda isagu aanu gacanta ku hayn halka kama dhacayaan cid kasta ay ku abshir baan leenahay waxa leenahay haddii dal la wada leeyahay aad wadaan walaalayaal habeen meydaan soo gudeen si xunna u meydaan socoteen waxa weeyaan waxaan hadalka kaga baxaya oo aan ku soo gumeynaya ilma adeerayaal qaran baynu nahay dad wada degan baynu nahay dad walaalo Ilaahay isbaday baynu nahay haddaynu wanaag doonayno aad wanaag wadaan annagu laba talaabaan idin jirnaa waynu wada degannahay maxaa kaligiin idin socodsiiyay maxaad habeenka la guuraysaan maxaad habeenka la socotaan maxaad xilliga xun la socotaan xilli wanaagsan socda baan leenahay sida annagu xalaal iftiin baa la cunaaye aan u doonayno wado ugu jirato halkan maanta waxa isugu kaaya keenay salaadiin waasiyo haldoor madax dhaqmeed waxa isugu kaaya keenay waana lagu soo duulay baaq waxaanu direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaanu u direynaa halkan waxa ka dhacday in wadadan madheera maalin dhow la dhagax dhigay dhagaxa iyadoo cid waxba laga weydiin waxa weeyaan guri hadduu nin xidho oo uu quful ku xidho ma isagaa fura mise nin kala fura dee ninka furay hadduu nin kala furo dee waa tuug yaa la soo xidhaanu leenahay raggii furay waa tuug weeye hadday cidi furaysa annagaa furayna kuwa abshira kii furaya mid kale anuu hebel iyo waxan guddoomiyuu wuxuu yidhi bara saabku wuxuu yidhi gacan biraanu ku qabanaynaa wixii halkaa waad iska hadashay guddoomiye deegaankii soomaad marin waxba umaad sheegin naftaadaad been u sheegtay ha ku talagelin waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha arrinkaa wax ka qabo halkan jeelkii madheeraha annagaa waxna laga weydiiyaa markay wax ka dhacaan Soomaaliland waxba lagama weydiiyo waxa weeyaan ammaan baa wadadaasi aanu u xidhnay annagoo Muuse Cabdaliya Ciise Muuse baa xidhnay annagu baana furayna haddii la furayo haddii kalena saasay u xidhnaanaysa qayradan jarata ka soo yeedha baa isku ay keentay dadka halkan iskugu yimaa waa dad nabadgelyo doonaya meeshan waxa weeye jeelkii madheeraa ku yaala uma baahna qalaaqal iyo qas uma baahna dadkan meesha degani jeelka dushay ka ilaaliyaan nabadgelyada ilaaliyaan dowgana ma diidanee sida loo furay bay diidan yihiin dadka halkan jooga sida loo furay ayay diidan yihiin cidda doonaysa dadka inay iska hor keento doonaysa inay qalaaqal ka rido ha ka dayso baanu leenahay haddaan madaxqameedkii nahay ha ka dayso ayaanu leenahay cabdishakuur ciise muuse keligii maaha ciise muuse wakiilka maaha magaalada berbera ayuu maayir ka yahay guddoomiye degmada waxba lagama weydiin maayo samadoonka waxba laga weydiin maayo odayaasha waxba laga weydiin maayo cidda hadashana aakhiraan u dirayaa waad iska tidhi cabdishakuur sidaas hadday kaa soo baxdo waxa weeyaan horta meel walba deegaankeeda loo soo fadhiistaayo nabadgelyadeedaa ku xidhnay haddii hawl la qabanayo hawl kastoo la qabanayo in deegaanka loo soo fadhiisto wax laga ogeysiiyaa waa fiican waxay dawladdu leedahay cidima diidana waxaa furista dowgana cidima diidana laakiin siday nabadgelyadu ay ku xidhan tahay ay nabadgelyadu ku fadhido wax walba in deegaankiisa loo soo fadhiisto wax laga weydiiyo wax lagala qabtaa iyuunbay meesha nabadgelyadu ku xidhnay waxaan leeyahay dowgan haddii la furaayo hadday dawladdu furaysa haddii shicib furayaba waa in deegaanka oo ay wax kala socdaan oo cuqaasha iyo odayaasha iyo madax dhaqameedka iyo siyaasigeedu intiba ay ogaadaan waxa loo furaayo
halkan joognaa maanta sidii horeba loo sheegay waa dawgii jarato oo muddo dhowr iyo 20 sannadooda xidhnaa sababa abni awgood baanu u xidhnaa deegaankana mas'uuliyadda koobaad lahaa oo dawgan iyo dushiisa iyo hoostiisaba degan halkanna maanta jooga talana waxay ku gaadheen arrinaanay waxba ka ogeyn oonay shaqo iyo shughul waxay ka ogyiinayna jirin inaan lagu furi karin halkaa soo xaqadu markaa ma soo inta aynu isla garanay intaasun maaha waddadan annagoon waxba ka ogeyn furitaankeeda lama furayo arrinta u xidhneedna waxayd arrin nabadgelyo waxa aad loogu dheeraaday halkan jeelkii madheeraha waa jeelkii Soomaaliland ugu weynaa waa run iyo xeryihii ciidanka iyo wax walba markaa dugsiyadii horumarkana lama diidana horumarka waa la soo dhaweynayaa laakiin horumarku wuxuu ku imanayaa in wax la isla ogaado marka la wada hadlo wadaduna wada iska xasaasiye bay ahayd runtii waanay tahay qof aan garanaynin inuu markiiba daf iska yiraahdo maaha reerka laga hadlay Muuse Cabdilana waa tolkayo waa walaaladayo waa abyaabti baan isku nahay isma haysano ceebi ma jirto wixii khilaafana waa la dhamaysan karaa laakiin maamulka waxaan leenahay madaxa isu gelin dadka